السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبادة جانل كيغا فضلا هدي اد ugu cusubtahay kusoo biir familka subscribe ka isaar gambaleelkana furo sida aad u noqotid qofkii koowaad oo muuqaalkayga soo gaaro. Ma tahay qof rabo inuu bilaabo CJ on style. Haddii aad tahay fadlan oo ku baahanahay videogan dhameeso. Haddii aad CJ soo degsatay oo aanan laakiin weli aan fahansanin fadlan oo ku baahanahay videogan dhameeso. haddii aadan weli soo degsanin fadlan linkigayga hoos ayaa soo dhigi doona linkigaas ku dhufo halkaasna iska diiwaan geli. haddii aadan weli Binance-na soo degsanin labadaba isku xiran yihiin Binance iyo CJ. waxaad samaysaa Binance soo degso isagana isdiiwaan geli. markaa isdiiwaan gelisid kadib waxaa sababtoo ah Binance iyo CJ way isla shaqeynayaan. lacagta oo CJ ku shaqeyn lahayd waxaa ka soo diraysaa qaybta Binance oo welina ay tahay USDT kaliya ay qaataan lacag kala ma qaadanayaan. haddana waxaa rabaa inaan tusiyo habka marka lacagta iskugu soo dir lahayd USDT ahaan haddii aad Binance ku jirtid. waxaad sameynaysaa Binance markaa soo kicisid page-kiisa hore saan waaye. waxaa arkaysaa meesha ku qoran tahay home, market, tracks, futures iyo wallet. waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay tracks ayaa ku dhufanaysaa. ila socda. tracks markaa ku dhufatid kadib waxaa ku soo baxayo qaybtan ay u jeedaan. aniga hadda lacag waxaa ii saaran GB waa wadanka ay jooga Ingiriis. waxaan rabaa inaan u bedelo USDT sa u jeedaan kor. lacag waxaan ugu jirto available oo hadda aan tusinaya example ahaan 26.55B meesha ku qoran tahay sell GB ayaa balance-gayga ii saaran. waa u jeedaan USDT ahaan haddii aan u sarifo qaybta kale oo cagaarka waxaa saaran USDT 37 ayuu noqonaa marka 26 oo wadankan Ingiriiska marka u sarifo dollar ahaan. xarta marka lacagta dhan inaad wada sariftid sida USDT ahaan marka waxaa ku dhufanaysaa meesha 100% ee ku qoran tahay 25%, 50%, 75 iyo 100 way. meesha 100 ka ku dhufanaysaa kulli ayuu wuxuu u sarifaa USDT ahaan. kadib ayaa waxaa ku sii dhufanaysaa sell. selka markaa ku dhufto wuxuu dhowayaa success yacni waa iska iibiye. mar waxaa laga yaabaa inuu qaato waqti marka waxaa jirto laba qayb oo ku kala iibi kartid. labadaas qayb waxa waa marka kan waa kii koowaad aan tusinay. haddii oo waqti oo qaato waxaa sameyn kartaa waa cancel kartaa. qaybta hoos meesha ay ku qoran tahay cancel ayaa ku dhufanaysaa. haddana cancel ayaa ku dhufanaa sababtoo waqti dheer ayuu qaato. qaybta fududa marka idin sheegaa oo automatic oo hore ka iibinaya. saa u jeedaan orderka waa kansalay. qaybtaas waxa waaye waxaa tagaynaa meesha ay ku qoran tahay market. saa u jeedaan waa flairta waa idin soo saari doonaa. market ayaa tagay. marketkan markaa imaatid yacni waqti ma qaadanayo. marketka markaa imaatid waqti oo dheer kaama qaadanayo. hore ayuu lacagtaada kuugu sarifaa. marka labadaas meel ayaa ku kala iibi karta. haddii aad 10 daqiiqo aad sugi kartid oo patient aad leedahay waxaa ku iibi kartaa meesha ay ku qoran tahay limit. haddii aad rabtidna bobsis oo daqiiqad yar waxaad tagaysaa qaybta ay ku qoran tahay market. marketkana waa jooga sidii hadday stepka marto kala leh waaye. waxaa ku dhufanaysaa meesha haddana 100% yacni waxa dhan ayaa rabta inaad iska iibisid 100% ayaa ku dhufanaysaa. 100% markaa ku dhufatid kadib ayaa waxaa kusii dhufanaysaa sell. sellka markaa ku dhuftay wuxuu siiyey optionkii success yacni waa iska iibisay. haddii aad rabtid marka inaad ogaatid inaad lacagta ay kugu jirto dollar ahaan waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay open order. open orders markaad tagtid kadib qaybta kale ku xigta ayaa tagaysaa order history. order history markaad tagtid kadib waxaa arkaysaa lacagtii oo ku bedelmatay. qaybta ugu horeysa waa aragtaan 26 oo GB aheyd. kadib waxaa ku dhufanaysaa kan koowaad GB to USDT gaas ayaa ku dhufanaysaa. waxaa rabtaa inaad ogaatid lacagta inay kuu sarifmatay oo USDT ma ku noqotay. inta markaa imaatid marka waxaa arkaysaa lacagta inay sarifmatay. lacagta Ingiriiska oo 26 wuxuu noqday $36 ayuu ii noqday. qaybta ay ku qoran tahay totalka ayaa waxaa ka arkaysaa lacagtii oo dollarku u noqotay oo USDT waxayna noqotay $36 ayay ii noqotay. fiig waxay iga goosteen BNB waa aragtaan 57B timeka iyo wax dhan waa u jeedaan. inta waa marka lacagta markaa usoo sarifanaysid waa. kadib haddana marka waxaan tusinaa qaybta marka CJ
haddana lacagta ugu soo diraysid. hadda marka lacagtaada waa soo sarifatay USTD ayay ku tahay. haddana waxaa la rabaa marka lacagtaas oo USTD-ga inaad ku shubtid qaybta CJ. markaa soo kicisid waxaa arkaysaa deposit iyo withdraw. meesha ay ku qoran tahay deposit ayaa ku dhufanaysaa. marka deposit markaa ku dhufatid labadan ayaa arkaysaa TRC iyo ERC. make sure inuu kan koowaad uu ku yahay, kaas ayaa jaban. kan labaad ma isticmaalin weli anaga, laakiin kan koowaad ayaa jaban. kan koowaad ayaa tig siinaysaa. marka tig markaa siisid kadib waxaa leedahay next markaa dhaadid pagekan ayuu ku keenaa. marka ama haddii kale halaha aa rabtid haddaysan meeshan ku jirin waa qori kartaa. marka tiro ahaan ayaa ugu qoraysaa. aniga marka 200 aa rabaa inaan ku qoro. 200 ma arki mana ku jirto, marka waa ku qoraa. marka 200 markaa ku qortid meesha ay ku qoran tahay receiver ayaa copy leedahay, waaba diyaarsan yahay. copygaas kaliya ayaa ku dhufanaysaa. copy markaa dhahdid linkigaas copy markaa soo dhahdid kadib waxaad tagaysaa qaybtaada Binance markaa tagtid waxaa arkaysaa deposit, withdraw iyo transfer. waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay withdraw ayaa ku dhufanaysaa. withdraw markaa ku dhufatid kadib ayaa kor waxaa sage garanaysaa USTD meesha lacagtaada ay kugu jirto. saa hadda u aragtaan aniga USTD-deeda waa sage gareeyay. halka ay ku qoran tahay marka address ayaa marka copyga soo qaadatay ayaa halkaas paste samaynaysaa. addresskaas ayaa halkaas gelinaysaa. addresska markaa gelisid kadib meesha ay ku qoran tahay network ayaa ku dhufanaysaa. marka network markaa ku dhufatid waxaa raadinaysaa TRC20. waa ciwaanka oo CJ waay. TRC20 meesha ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa. markaa ku dhufatid kadib ayaa markaan halkan waxaa gelinaysaa lacagtii oo aad Binance ku soo dirtay oo USTD ahaan u sarifatay. aniga marka waxaa gelinaa $200. marka waxaa rabay $200 inaan isku soo diro, waana arki kartaan. 200 markaa ku dhuftay wuxuu iga goostay $1 ayuu iga goostay. lacag waxaa ii soo galaysa marka $199. $200 markaa ku qoray lacag ayuu iga goostay. marka waxaa rabaa inaan 200 aan buuxiyo. 200 marka waxaa ku buuxinaa $1 inaan raacsiiyo waay. saa u jeedaan 201 ayaa ka dhigay. halkana isagaa reebanayo fee waay oo laga goosanayo. marka haddii aad rabto content inaad isku soo dirtid contact wuxuu ku noqonaa 49. marka make sure inuu yahay 51 kowgaasna isaga ha reebto. 200 marka waa aragtaan withdraw ayaa ku dhufanaa. marka withdraw markaa ku dhufatid pagekan ayuu kuu soo bixinaa. marka pagekan waa muhiim, waa inaad samaysaa wax la yiraahdo screenshot order confirmed, yacni lacagtu waa dirto waay. marka waxaa lagaa rabaa inaad screenshot ka qaadid. haddii aadan ka qaadin screenshot lacagtaada meel u raacanaysa ma lahan. qolada CJ-na ma gaarayo ilaa aad screenshot ka qaadid. qaybta kale haddana usii gudbaynaa markii aad screenshot ka qaadid. screenshotka markaad soo qaadatid waxaa kaloo lagaa rabaa meeshay ku qoran tahay TXID. meeshaasna copy ayaa lagaa rabaa. copy ayaa samaynaysaa meesha ay ku qoran tahay TXID. shaashada yar ayaa taabanaysaa copy. qoraalkaasna waa lagaaga baahan yahay. meesha dhigaysidna hadda ayaa ku tusinaa. meesha qoraalka copy soo samaysay waxaad dhigaysaa meesha ay ku qoran tahay receiver address. kaasna waa muhiim. screenshot iyo copygaas ayaa soo qaadanaysaa. labadaas markaa soo qaadatid CJ ayaa soo kicinaysaa. waxaa gelinaysaa sawirkii aad soo qaaday screenshot iyo qoraalkii aad copy soo samaysay ayaa waxaa gelinaysaa meesha ay ku qoran tahay receiver address. qoraalkii copyga ahay halkaas ayaa dhigaysaa. sawirkina halkan ayaa gelinaysaa. kadibna waxaa ku dhufanaysaa confirm. ujeedaan qoraalkii waa kana waa soo qaaday meesha ayaa dhigay. sawirkina waa soo geliyey. kadib waxaa ku dhufanaa confirm markaa ku dhufatid applicationka waa submit garaysay. kadib saas ayaa marka lacagtii iskugu soo dirtay qaybta CJ. lacagtaada saas ayaa CJ ugu soo dirtay. marka waxaa lagaa rabaa inaad samaysid content order maalintii 24 saac gudahooda. content kaliya ayaa lagu ogol yahay inaad samaysid order. lacagtaada hadday badan tahay ilaa waxaad tagaysaa 70 order maalintii. laakiin aniga 200 ayaa galshay wuxuuna ii ogol yahay content kaliya. waxaan tusinaa marka orderada sida loo sameynayo maadaama aan weli soo degsanin oo geedkan kugu cusub yahay. waxaa ku tusinaa marka content order sida u sameyn lahayd. sidaa ujeedaan aniga 2 maalin ayaa ku jiraa. 2 maalinna waxaa sameeyay $16 ayaa sameeyay. commission maalintii waxaa sameeyay $6.61. orderka completedkana waxaa waaye 48. labada xabo waxaa rabaa marka hortiina inaan ku sameeyo. screenshot ayaa idiin soo sameeyay. labadan xabo marka sidaa u sameyn leedeen ayaa idin tusinaa. waxaad tagaysaa marka pagekan haddii aad rabtid inaad imaatid home haddaad joogtid pagekan ma arkaysid. waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay grab. gacanta 5 farood meesha ku
sawiran tahay ayaa ku dhufanaysaa dhaxbartanka markaa ku dhufatid page-kan ani aan joogo ayuu ku keenaa marka waxaa arkaysaa deposit iyo automatic grab waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay automatic grab markaa ku dhufatid san ayuu ku noqonaa maalinta ka horeysana waxaa sameeyey $7 iyo 35 b ayaa sameeyay iyo maanta $6 marka maalin walba lacag ayaa sameynaysaa marka waxaa ku dhufanaysaa marka meesha ay ku qoran tahay automatic oo qaybta buluuga ayaa ku dhufanaysaa mar haddii lacagtaada aad DJ ku soo dirtay waxaad diyaar u tahay inaad shaqaysid oo content order aad samaysid grab ayaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay automatic hadda arki doontaan automatic marka ku dhufatid tiro ayuu ku tirnaa 4 3 2 1 geedahaas ayaa wareeganaya kadib shay ayaa ku soo baxay hadda waxa ii soo baxay koofida marka waxa la gadoyaa $35 commission waxa ka helay 9 b kadib orderka waa complete gareeyay hadday orderkaygu wuxuu ahay 48 hal ayaa ku darsoontay 49 ayuu ii noqday waxaana ka helay lacag 9 b oo commission ah labaad hadana sameeyna hadana sidaas leh ku wadaysa ilaa 50 xabba ay ka sameeysid kii labaad hadana furay kan meeqo sii doonaa bal fiiriya wareegana banaanada soo baxday wuxuu isiiyey 9 b ayuu isiiyey soo aragtaan kontonkina waa buuxiyay marka hadda kontonka marka buuxisid marka yeelaaye in aad content iko ama content laba ka dhigtid haddii aad lacag badan dhigtid waxa loo ogol yahay ilaa iyo 70 xabteeda aad iyo aad u maasantiin videogan muddo ayaa iga sugaysan waan idin soo duubay waxaan rajeynaa insha Allah in aad diyaaradda hal mar aan wada kicino maadaama aniga hadda aan bilaabay waxaan rabaa adigana dhinacaada inaad ka soo bilaawdid ka faa'iideysano waa inoo kulan dambe oo wacan oo wanaagsan